haddii aad dhagaxaan waaweyn ku rido quraarad maran kuwaasoo ka turjumaya waxyaabaha ugu muhiimsan noloshaada oo isugu jira qoyskaaga, caafimaadkaaga iyo riyooyinkaaga. kadibna aad kaga daba rido dhagaxaan yaryar oo shagaxa oo buuxin doona meelaha banbanaan ee dhagaxaanta waaweyn ay ka tageen. mar haddii weli loo hayo meel ay geli karaan maadaama hore meesha ugu sii ridatay waxyaabihii kugu muhiimsan noloshaada, dhagaxaanta yaryar iska yaraadaan haddana waxay ka turjumayaan waxyaabaha yaryar ee muhiimka ku ah sida shaqadaada iyo gurigaaga. kadibna haddii aad ku sii shubto koob ciid ah iyaduna waxay buuxinaysaa meel walba oo ay dhagaxaantu ka tageen, ku yar iyo ku weynba. ciidan iyana waxay ka turjumaysaa waxyaabaha yaryar ee aadka muhiimka aan kuugu ahayn sida waxyaabaha aad xiisaynayso inaad samayso mar walba, sida inaad TV daawato iyo inaad dalxiis u baxdo. hagaag haddii aad bilowgii horeba ciidan ku shubi lahayd quraarada ma aadan heshaan meelo banbanaan oo aad ku ridato dhagaxaanta yaryar oo way ka buuxin lahayd. haddii aad sidoo kale dhagaxaanta yaryar aad ku horreysiin lahaydna iyana waxay ka buuxin lahaayeen dhagaxaanta waaweyn, taasoo ka dhigan inaad mar walba horreysiiso waxyaabaha ugu muhiimsan noloshaada sida dhagaxaanta waaweyn oo kale. ugu dambaynna haddii aad ku shubto kafee yar wuxuu doonaba ha ahaadee wuxuu si qunyar ah u dhex qaadi doonaa dhammaan dhagaxaantii iyo ciiddii isku jirtay oo wuxuu buuxin doonaa meel walba oo bannaan si kastoo aysan indhuhu qabanaynin. sidaasna waxaa ku buuxsami doona dhammaan quraaradii, taasoo ka dhigan si kastoo aad noloshaada u nidaamiso haddana waxaa jira waxyaabo badan oo saa'id ah oo aad qabsan karayso. middanna waxay nooga turjumaya kafeega aad ugu dambayn ku shubtay meesha. haddaba su-aalan ku weydiiye maxaa adiga kaga baxay daawashada muuqaalkan intii caqligaaga ah?